runtii waan dhamaan dabadayaal dulmarka wararka wargeyska maalinlaha Jubba waxa ugu weyn xukuumadda Soomaaliland ayaa madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ku eedeysay inuu ka dambeeyay qorshaha amni darrada ee Laascaanood. wasiirka gaashaandhigga Soomaaliland Cabdiqani Maxamuud Caateeye ayaa qoraal uu ku baahiyay bartiisa Facebook ku sheegay in qaar ka mid ah ciidamadii uu Farmaajo u diray tababarada ay ka dagaalamayaan Laascaanood. qorshaha Soomaaliland lagu khalkhalgelinayo sanado badan ayuu socday isagoo madaxweynihii hore ee Soomaaliya Farmaajo uu ciidamo tababar ugu diray dalalka Eritrea iyo Turkiya si ay Soomaaliland ula dagaalamaan. hubkii Soomaaliya loogu deeqay ayaa Soomaaliland lagula dagaalamaya ayuu yiri Caateeye. xukuumadda Soomaaliland ayaa marar kala duwan sheegtay in kooxo argagax ah iyo ciidamo ka tirsan kuwa Puntland ay ka dagaalamayaan Laascaanood, taasoo Puntland iyo Al-Shabaab ay beeniyeen. dagaalka Laascaanood ayaa soconaya maalintiisii 8aad oo xiriir ah, welina ma muuqato wax waan ah oo lagu joojinayo dagaalka. xukuumadda Soomaaliland ayaa ku baaqday xabad joojin, laakiin dhinacyada ayuu midba midka kale ku eedeeyay inuu daacad ka ahayn xabad joojinta. dhanka kale culimada waaweyn ee Soomaaliland ayaa ku baaqay in la joojiyo dagaalka Laascaanood isla markaana miiskooda hadalka la iskugu yimaado. culimadu waxay sheegeen in dhiigga qofka muslimka ah oo la daadiyo ay xaraan tahay, gaar ahaan bilahan aynu ku jirno oo ah bilihii xurmada lahaa. culimadu waxay xasuusiyeen labada dhinac in dhiigga muslimka oo la daadiyo uu xaraan yahay iyadoo lagu jiro bilaha xurmada leh ee Rajab. culimadu waxay taageen adkeynta iyo hirgelinta xabad joojinta iyo wixii khilaaf ahna lagu dhameeyo wada hadallo iyo wada xaajood. waxay sheegeen in dagaalka aan waxba laga faa'iideyn khasaare mooyaane. culimadu waxay bahda warbaahinta iyo dadka baraha bulshada isticmaal ugu baaqeen inay Alla ka cabsadaan oo ay iska hubsadaan wararka ay faafinayaan, ayna ka baaqsadaan hurinta colaadda sida baaqa culimada uu dhigayo. sidoo kale qurba joogta Soomaaliyeed ayay ugu baaqeen inay ka qayb qaataan adkeynta nabadda, ayagoo sheegay in ay ka culimo ahaan u diyaar yihiin inay qaybtooda ka qaataan daminta colaadda. bulshada Soomaaliyeed ayay sidoo kale ugu baaqeen inay ka qayb qaataan gargaarka loo fidinayo dadka shacabka ee ka barakacay xasarada ka taagan magaalada Laascaanood. ugu dambeyntii waxay sheegeen in dadka reer Soomaaliland ay yihiin dad walaalo ah, isla markaana loo baahan yahay in colaadda aynan cid dambe ku dhiman oo la joojiyo. ugu dambeyntii dowladda Djibouti waxay iska fogeysay inay wax lug ah ku leedahay arrimaha ka socda magaalada Laascaanood ee gobolka Sool, halkaasoo ay ku dagaalamayaan Soomaaliland iyo dadka deegaanka ee SSC. wasiirka arrimaha dibadda Djibouti Maxamed Xuseen Cali oo qoraal ku soo qoray bartiisa Twitterka ayuu sheegay inaysan Soomaaliland ka codsan Djibouti dhexdhexaadin xaaladda Laascaanood. Maxamuud Yuusuf Cali waxa uu sheegay in Djibouti ay ku adkeysan doonto siyaasadeeda darisnimo iyo doorkeeda ku aadan dhexdhexaadnimada. dhawaan ayay ahayd markii mucaaradka dalka Djibouti ay ku eedeeyeen madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle inuu Soomaaliland u ballan qaaday taageero militari ah oo ka caawinaysa dagaalka ka socda Laascaanood. mucaaradku waxay sheegeen in madaxweyne Muuse Biixi uu Djibouti u diray saraakiil ciidan oo gaarsiiya codsiga Soomaaliland ee ku aadan inay Djibouti caawiso xaaladda ka soo cusboonaatay gobolada Sool, Sanaag iyo Cayn. intaas ayaynu ku ekeenaynaa barnaamijkeena maanta. magacaygu waa Ismaaciil Kulmiye, waxaad naga daawanayseen wargeyska maalinlaha Jubba. aniga iyo bahda wargeyska maalinlaha Jubba waxaan idin leenahay ismaqal dambe oo xiiso leh. nabadeey.